madaxweynaha dooran ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalasaqdi dhaxashir jiraayid ku qabtay caasimadda Muqdisho waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah ugu horeyn Mudane Farmaajo waxa uu mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed taageerada ay u muujiyeen waxa uu ugu baaqay inay joojiyaan isu soo baxyada waad ku mahadsantihiin dabaaldegiina iyo meel kasta soo baxdeen inkastoo la ii sheegay xoogaa dhibaato ah inay dhacday waxay maraysaa maalintii labaad waxaan rabaa waan idin ka codsanayaa inaad u fahamtaan campaign-kii waa dhamaaday waxa hadda loo gudbaayaa xilli shaqo oo aan doonayo in dawladda iyo insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo shacabka Soomaaliyeed inay bilaabaan inay ka wada shaqeeyaan oo shacabku ay sii wadaan kalsoonida ay siinayso dawladdeeda laakiin dabaaldegii inuu dhamaaday oo la joojiyo wixii hadda ka dambeeya banaanbaxyadan iyo soo baxan maxaa yeelay campaign-kii waa dhamaaday waad guulaysateen wixii aad rabteen waa hesheen xildhibaanada sharafta leh waa idin maqleen dareenkiina waa qaateen wayna ku shaqeeyeen dareenkiina maxaa yeelay waxay doorteen cidda aad rabteen waxaan idin ka codsanayaa oo aan waqtigan dambe u qabtay shirkan jaraa'id inaad walaalayaalow aad joojisaan isu soo baxa waxa uu sidoo kale madaxweyne Farmaajo ka hadlay arinta abaaraha ee dalka ka jirta isagoona shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in si wada jir ah ay u gurmadaan dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha oo aad ogtihiin inay xoolihii iyo dadkii ay la'aanayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba oo awoodi kara inay ku tabarucaan walaalahooda baaba'aya oo xoolaha iyo xoolahooda iyo noloshooda iyo beerahoodii ay ka baaba'een waa inaan isu gurmadno waa inaan isu naxariisano insha Allah waxaan rajeynayaa dadka waliba khaasatan qurbaha jooga inay ku soo tabarucaan hay'adda gargaarka abaaraha oo ay culimadu isu xilqaameen oo ay ugu dambeyntii ayuu madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu tacsi u diray ehelkii iyo waliba asxaabtii uu ka geeriyooday ee banaxariistii jannaha ka waraabiye madaxweynihii hore ee Puntland General Adam Muuse ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan tacsi u diro Allah u naxariistay General Adam Muuse oo shalay ku geeriyooday magaalada Dubai Allah u naxariisto jannadiisa naxariistiisa Allah siiyo waa shirkiisii jaraa'id ee ugu horeysay madaxweyne Farmaajo tan iyo markii 8 bishan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay u doorteen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 4 sano ee soo socota Axmed Cumar Hon Cable TV Muqdisho.